وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق، فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق، فإني أمين لعهد الوثيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دماذا برنامج كيني فلنقينتا كتابكي شروح معالم في طريق، كتاب كاسو قرية أميركا جماعة سادعون بالحق شيخ مصطفى كامل محمد حفظه الله. daawadayaal waxaa si weyn uga soo bogateen fusuusheenna horeeto ugu dambeeyay fasalkii laa ilaaha illa allah manhaju xayaat, qadaayaad aada u waaweyn iyo nuqaad aada muhiim u ah oo ay ka mid yihiin in laa ilaaha illa allah ay tahay kelimad weyn, wujuudka iyo jiritaanka koonkan ay ayadu asal u tahay, loona baahan yahay inay xayaatada asal u noqoto, manhaj nololeed nolosha lagu raacayo inay ayada noqoto. sidoo kale caawa waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenii fasal cusub oo la magac baxay shariica kooniya. fasalkaasoo aada muhiim u ah asagoo aan kaga hadli doona arrimo aada muhiim u ah ay ka mid tahay koonkan aan ku noolno oo dhan allah subxaana wa tacaala inuu u hogaansan yahay oo allah kaliyaha sidii uu ugu talagalay noloshiisa koonkan oo dhan sidii allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inay hooshiisa u socoto. sidoo kalena loo baahan yahay bashariyada ama insaanka si caama inuu sidoo kaleeto inuu asagana sidii allah subxaana wa tacaala ugu talagalay inuu noloshiisa u hogaamiyo allah subxaana wa tacaala. isla markaana waxaanu ku cadayn doonaa oo barnaamijka lagu falanqeyn doonaa inuu insaanku yahay jusi ama qeyb ka tirsan koonkan oo loo baahan yahay inuu fidradii allah subxaana wa tacaala ku abuuray inuu waafaqo oo allah subxaana wa tacaala keligii talada ka qaato, taladaas oo loo baahan yahay inuu macnaha meel kaleeto uusan fiirinin oo keligii allah ku gooni yeelo. waxaanu cadayn doonaa insha allahu tacaala inay saddex qeybood inaysan marna kala baxaynin dhinaca caqiidada iyo cibaadada iyo shareecada oo iswata markii nolosha laga helo basharka, inay taasi ay keenaysa laa ilaaha illa allah labadeedii qeybood oo dhammaystiran inay noloshii bashariyada kusoo laabanayso, sacaadadooda iyo liibaantoodan halkaas ay ka bilaabanayso. sidaa darteed daawadayaal barnaamijka waxaa igala qeybgelaya caawa martida kale ah doctor cabdiqaadir cabdiwaare, sheekh xasan cabdullaahi isxaaq, sheekh ibraahim haajar siraaj. kusoo dhawaada barnaamijka adinkii daawadayaashaba. barnaamijkeena ayaan halkaas kasii wadaynaa oo insha allahu aad uga bagan doontaan qeybo aada muhiima caawa oo insha allahu tacaala barnaamijyo waaweyn lagu soo bandhigi doono. barnaamijkana waxaa noo daafuraya doctor cabdiqaadir cabdiwaare, falyatafadal mashkuuran maajuura. bismi illaahi raxmaan raxiim. sida hore loo soo sheegay anaa fasalkii hore waxaa lagu soo tilmaamay in laa ilaaha ila allah ay tahay saldhigga islaamka. macnaheeda marka lasoo koobana uu yahay ilaahi subxaana wa tacaala uu keligii addoon loo noqdo. addoonnimadaasna waxay ka imaaneysaa saddex jaanib oo wada jira. waa alle subxaana wa tacaala oo qalbiga si saxa looga rumeeyo oo xaggii ictiqaadkii ama caqiidadii ah, iyo xaggii cibaadadii ama shacayru tacabudiya oo ilaahi subxaana wa tacaala keligiis loo gaar yeelo, iyo qeybta kale oo sharciga ama shariicada ilaahi subxaana wa tacaala uu soo dejiyey in keligeed ama ilaahi subxaana wa tacaala sharciga uu soo dejiyey nolosha lagu dabaqo. haddaba maadaama sidaa lasoo tilmaamay, qeybta u horeysa oo caqiidada ama qalbiga ku saabsan, macnaha waxaan ognahay in caqiido qalbiga fadhisa ama iimaan ku qarsoon qofka damiirkiisa oo aan camal ama maaragtay waaqic aan lahayn inuuna marna maaragtay soconaynin, ilaahi subxaana wa tacaalana una aqbalayn. camal iyo caqiido macnaha maaragtay aan ama caqiido qalbiga ku eg oo aan maaragtay waaqic lahayn, ama dhinaca kale haddii la yiraahdo macnaha waaqic iyo sheegasho kala go-an, marna ilaahi subxaana wa tacaala inuuna aqbalaynin. kitaabkiisuu noogu cadeeyey, meelo badan uuna maaragtay ku tilmaamay. waxaa ka mid ah haddii aan soo qaadano alle subxaana wa tacaala markii uu noo sheegay aakhirada iyo maaragtay calaamaadkeeda waaweyn markay dhici doonaan,
oo yacnaha qofka maaragtay camalkiisa aan la aqbalaynin. alle subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yowma yaأtii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi iimaaniha khayra. macnaha sida maaragtay marka calaamadahaas ay dhici doonaan aan loo aqbalaynin qof macnaha iimaan inuu rumeeyo, macnaha waqtigaas inuu maaragtay rumayn la yimaado aan loo aqbalayn, ayaan sidoo kale waxaan loo aqbalayn qofku inuu yiraahdo iimaanaan watay laakiin camal saalixa macnaha kuma darin. sidaa darteed macnaha iimaanka waxaa macnaha dabiici ah qofku markuu ilaahay rumeeyo inuu ka dhasho camal saalixa. meelo badanna qur-aanka macnaha wuu isku xiraa arrintaas, oo mathalan waxaa ka mid a maaragtay in aladiina aamanuu marka la yiraahdo mar walba wa camilu saalixaad ayaa ku xigta, laakiin meel macnaha caqiide qalbiga ku eg looga kaaftoomay marna ma jirto. haddii marka ay dhacdo sheegasho iyo waaqic kala duwan, ama caqiide la yiraahdo qalbiga ama maaragtay qalbiga iigu jirtaa, macnaha waxa soo baxayo waaqic runtii ka fog islaamkii xaqiiqada ah oo saxda ahaa, waana waaqica maanta jira oo runtii ah macnaha iimaan doorsoomay oo ka fog maaragtay islaamkii ilaahi subxaana watacaala agtiisa ictibaarka ku lahaa oo ilaahi subxaana watacaala uu aqbalayay. dhinaca kale haddaan soo qaadano shariicada, alle subxaana watacaala macnaha koonkan oo dhan isagaa abuuray, isagaa maaragtay muxuu ahaa u dejiyey qaanuun ama nidaam guud oo uu ku socdo, ama tafaasiisha yana maaragtay qeybihiisa kala duwan kala hagta. haddii aan maaragtay soo qaadano yana samaawaadkii iyo maaragtay dhulalkii iyo maaragtay kulli qeybihiisa kala duwan ilaahi subxaana watacaala ayay maaragtay u hoggaansan yihiin, isagay ka dambeeyaan. alle subxaana watacaala wuxuu leeyahay afa kayra diin illaahi yabquun walahu aslama man fi الsamaawaati waalardi طawcan wakarhan wa ilayhi yurjacuun. marka ilaahay kulligood macnaha u hoggaansan yihiin. islaamnimada macnaheeduna waa sidaas, macnaha maadaama ilaahi subxaana watacaala nidaamka guud oo u dejiyey ay waafaqsan yihiin oo ay ku socdaan, macnaha allay u hoggaansameen, allay muslim u yihiin. muslimnimada marka ma aha mid bini aadamka keliya laga dalbayo, laakiin alle subxaana watacaala markuu koonkan oo dhan abuuray ayuu wuxuu ku yiri i'tiya طawcan aw karhan, markaasi waxay ku yiraahdeen qaalata ataynaa daa'iciin, iyagoo alle maaragtay adeecsan oo u hoggaansan ayay maaragtay u yimaadeen. haddii aan maaragtay u gudubno bini aadamka laftiisa, qeybo badan oo waxaa jira isaga uusan shaqo ku lahayn, maamulkeeda iyo siday u socoto oo waafaqsan nidaamkaas guud oo alle subxaana watacaala uu u dejiyey maaragtay nolosha. haddii aan soo qaadano qofku macnaha noloshiisa, macnaha goorta uu dhimanayo ama goorta uu adduunkan imaanayay, wax shaqaahu ku lahaa ma jirto, macnaha ma xukuma asagu. macnaha gaajada qabanaysa, hurdada qabanaysa, macnaha waxaasoo dhan waxuu asagu xukuma maaha, laakiin waa qeyb maaragtay ilaahi subxaana watacaala u hoggaansan oo insaankuna uuna wax saldaa ku lahayn. waxaa ka mid a maaragtay insaanka jirkiisa laftiisa haddii loo yimaado, macnaha yana qeybaha jirkiisa uu ka samaysan yahay ama systemka maaragtay jirkiisa, qeyb kastoo ilaahi subxaana watacaala ayay u hoggaansan tahay. insaankuna maaragtay wax awooda kuma laha. hadda wadnihiisoo kale, garaaciisoo kale, macnaha hal daqiiqa qofku ma joojin karo, wax talaa uu ku leeyahay ma jirto. yana wareega dhiigga yana wuu iska shaqeynaa, wuu iska socdaa, laakiin wax maaragtay uu ka qaban karo ma jirto, ma joojin karo, ma siyaadin karo, yana wax maaragtay tasarruf uu ku leeyahay ma jirto. waxaa lamida neefsigiisa, macnaha wax yar hadduu isku celis yiraahdo ma celin karo. marka nidaamkaas guud oo ilaahi subxaana watacaala u dejiyey ayuu maaragtay waafaqsan yahay. insaanka marka waxaa laga rabaa qeybta yar oo maaragtay lagu imtixaamay oo loo siiyey maaragtay ikhtiyaarka inuu nidaamka guud hoos geeyo oo ilaahi subxaana watacaala u talada u dhiibto
uu sharcigaas ama maaragtay nidaamkaas guud oo alle uu koonka u dejiyey uu ka mid noqdo. inta laga rabo maaragtay waa intaas. aragtida islaamka oo arrintaa ka qabana macnaha waa wujuudkan oo dhan inuu alle addoon u yahay, inuu isagu abuuray, cid la abuurtay ayna jirin, isaguna uu yahay cidda keliya oo xaqa u leh inuu maaragtay nidaamka u dejiyo. nidaamkaasna macnaha bini aadamku uu qeyb ka yahay. maaha shariicadu inay maaragtay bini aadamka keliya ku socoto, laakiin waxay qeyb ka tahay nidaamkaas guud oo ilaahay subxaana watacaala uu maaragtay xayaatada inay ku socoto oo ugu talagalay. jazaak allahu khayran doctor cabdiqaadir cabdiwaare, aad ugu mahadsan tahay sida fiican ee noogu faahfaahisay. daawadayaal ficlan si weyn waxaana loogu faahfaahiyey in koonkan oo dhan allah subxaana watacaala uu hoggaansan yahay, insaankana uu ka tirsan yahay juzi ama qeyb ka tirsan koonkana uu yahay. si weynna waxaana loogu cadeeyey qeybo badan oo insaanka jirkiisa ka tirsan ama howlo badan oo gudihiisa ka socda inuusan shuqul ku lahayn. sidaa darteedna loo baahan yahay qeybtan ilaahay ku karaameeyey oo ku qaas yeelay ikhtiyaarka ama caqliga ilaahay siiyey oo koonka intiisa kale looga bedelay, la rabo inuu allah subxaana watacaala ku garto. doctor aad u mahadsan tahay. sheekh xasan maxaa noogu daraysaa? bismillah, waxaan ku dari lahaa sida lasoo sheegay, yani insaankan koonkan alla abuuray subxaanahu watacaala. insaankana wuxuu ka mid yahay koonkan khalqiga ilaahay uu ku abuuray qeyb ka mid ah wey, waa juz ka mid ah koonkan ayuu noqday insaanka. sidaa darteed allah subxaanahu watacaala maadaama lasoo sheegay nolosha insaanka waa laba qeybood. qeyb waa lasoo sharxay, waa ta noola cadeeyo layihi waa jaanib fitri oo ilaahay ugu hoggaansan yahayo koonkaas buu ka mid yahayo, yani sidii ilaahay ugu talagalay u nool yahay uuna raacaya mana ka balaaxan karo. marka waxaan ku dari lahaa qeybta kale oo ah insaankan, qeyb jaanibka kale oo ah jaanib ilaahay ugu talagalay oo khiyaar la siiyey insaanka. khiyaarkaasna wuxuu ku yimid kow insaankan inuu ilaahay karaamay subxaana watacaala, khalqigaas faraha badan oo ilaahay koonka ku abuuray inuu ka duwan yahayo ilaahay si gaar u karaameeyey. karaamadaas waxay ku timid in ilaahay insaankan uu caqli siiyey. caqligaas waxaa ka dhashay inuu macnaha wax kala dooran karo, khiyaar buu leeyahay, arrimo uu xor u yahay, madax banaan yahay, isaga ku xiran baa jira, yani siduu doono macnaha arrin ku xiran wey, macnaha dalabkiisa iraadadiisa. marka taa waxay keentay in allah subxaanahu watacaala insaankaas jaanibkaas isaga ah weeyana qeybta asaasiga u ah. macnaa insaanka khasaaista insaanka uu leeyahay qeybna xayawaan wuxuu la wadaagaa xayawaanaadka iyo inuu wax cabo, wax cuno oo tarmo, waxaas waa macnaha wuxuu la wadaagaa maaragtay xayawaanaadkaas kale. laakiin qeybtu khaas ku yahay waa qeybta macnaha ikhtiyaarka ilaahay usii subxaanahu watacaala oo ah qeybta ruuxda iyo iimaanka allah inuu rumeeyo subxaanahu watacaala. qeybtaas iyada ah allah subxaanahu watacaala insaanka looma daynin oo lama dhihin insaankaas ka mid noqo sida xayawaanka kale ama khalqigaas kale ilaahay ay u nool yihiin alla u caabudayaan isaga maaragtay ka mid ma la siinin taa iyada. laakiin waxaa layihi adigaa dooranaya inaad koonkaas iyo dariiqa ilaahay ugu talagalay inaad raacdo iyo inaad diido. macnaha arrintaas ilaahay subxaanahu watacaala si uu u cadeeyo wuxuu usoo dejiyey marka shareecadan sharci nidaam ah oo ilaahay ugu talagalay subxaanahu watacaala insaankan inuu ka mid noqdo juz min hada alkown. maadaama insaankan uu ka mid ahaa, haddana shareeco ayuu ilaahay usoo dejiyey. shareecadaas inay noloshaan jaanibkiisa ikhtiyaariga ay hagto, ilaahay uu ku caabudo, alla ku raaco, doon ugu noqdo, alla maaragtay dariiqiisa uu ku raaco. taana waxa weeye waa shareecadaas qeyb ka mid ah koonkan. yani shareecada ilahay uu soo dejiyo koonkan oo ilahay isaga wada maamulaya. shareecada insaankan si khaas ah loogu soo dejiyo noloshiisa inuu ku hago oo koonkaas uu ka mid noqdo ilahay ugu talagalayna waa un qeyb koonkaas sharcigaas guud oo ilaahay ka mid ah. marka ma kala qeybsan. saa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhigay yani sida shay kasta oo makhluuq ah oo koonkan uu keenay isagaa fitrin ugu talagalay qaabku u noolaan lahaa. hadda xayawaanaadkaas sibay u nool yihiin, macnaha geedaha sibay u tarmaan, kullu shay oo makhluuq oo ilaahay dariiqu ugu talagalayo oo uu u nool yahay waana ilaahay uu u sahlay subxaanahu watacaala. walidaalika insaankan maadaama ilaahay fitriyan uu aqoonsan yahay oo inuu abuuray oo raasiq uu yahay oo isaga uu maaragtay maaligooda uu yahay, haddii jaanibka khiyaariga waxaa la yidhi waxaad yeelaysaa sharcigan alla idiin soo dejiye raaca. alla wuxuu leeyay uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fattabicha. ya
yani shareecaan idin soo jeedin shareecadaas raaca yani walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun yani wax alla kasoo harin qofka inuusan raacin insaankii marka jaanibkan khiyaarka waa jaanibka marka insaankan uu ku yeelanayo inuu xoriyad u helo inuu insaanka insaaninimadiisu xoriyadda waxay ku imaan markuu ilahay inuu addoon u noqdo insaanka insaaninimadiisu waxay xaqoobi kartaa markuu allah subxaanahu watacala wax isku xeray ama ay noqoto caqiida iyo maaragtay waxa maaragtay dadkan isu keenay insaankan wuxuu gaari karaa markay noqoto macnaha bisamacaas asaaskiisii qaacidada uu ku dhisan yahay markay noqoto usra iyo qaacida asaas oo ilaahay subxaanahu watacaala dariiqadaas ay noqoto macnaha insaanka halkaas ku gaari karaa lidaalika saa darteed allah subxaanahu watacaala wuxuu noo cadaynayaa sharcigaas uu soo dejiyey iyo nidaamkaas in uu yahay insaanka inuu raaco in looga baahan yahay oo sida ilaahay subxana koonkan u abuuray waxaa leeyahay ma aayad qur-aan amar ma jiro ilaahay uu faro insaanka yani wax uu ilaahay ka reebo insaanka ma jiro wax uu tilmaamo yiri waxaas raaca oo wanaag ah khayr ma jiro macnaha kullu shay kasta oo allah xaggiisa ka timid waxay noqonayaan waa shareeca waa amar ilaahay xaggiisa ka yimid subxaanahu watacaala walidaalika insaanku waxaa laga maarmaana oo halkaa nooga cadaynaya shareecada ilaahay uu usoo dejiyay insaankan oo macnaha xayaatadooda inay raacaan la rabo waa shareeca kowni ah oo koonkaas insaanka ku xirayso iyaga iyo koonkiina hal meel ay wada jeesanayaan alla keli ay wada macna muslimiin u yihiin alla keli ay caabudayaan intaas weeye inta ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay shareecadaas ayada ah haddii la waayana haddee macnaheed waxa wey insaankii shaqaaqa iyo halaag iyo dhibaata marna ka bixi maayo mahadsantahay sheekh xasan jazaaka allahu khayran qadaayaadkaas aad bay u cadcadyihiin ficlan daawadayaal barnaamijka aad buu noogu cadyahay ficlan waxaan isleeyahay si weyn baa loo cadeeyay ilaahay baa koonkan abuuray wuxuuna ku socdaa nidaamkii allah subxaana watacaala ugu talagalay insaankana sidoo kale waxaa laga dalbanayaa inuu nidaamkaas ilaahay subxaana watacaala koonka u dejiyay inuu raaco oo sharciga iyo nidaamka iyo manhajka nolosha uu ku saleynayo allah subxaana watacaala uu ka qaato waxaan ognahay allah subxaana watacaala inuu asagu abuuray xayawaanaad u abuuray xayawaanaadka waxaa la yihahdaa waxaa lagu abuuray caqli bilaa shahwa bilaa caqli oo meeshaas ayagu shahway leeyihiin caqli ma lahan insaankana waxaa la iskugu daray shahwo iyo caqli malaa'igtana waxaa la abuuray caqli bilaa shahwa walidaalika insaanka waxaa la yihahdaa haddii uu hawadiisa iyo shahwadiisa uu raaco oo u hogaamsamo ilaahay ka dhigto wuxuu ka hoos marayaa xayawaanaadka haddii uu shahwadiisa kasoo furto oo caqligiisa uu shaqeeyo oo fitradii saliimka aheyd oo allah subxaana watacaala uu ku abuuray ou raaco oo sharciga iyo nidaamka uu nolosha u raacay allah ka qaatana wuxuu ka sara marayaa malaa'igta sidaa darteed waxaana looga baahan yahay inaan nolosheena mideeda yar iyo mideeda weyn inaan nidaamkaas koonka u hogaansan ilaahay subxaana watacaala annaguna inaan awaamirta allah ka qaadano oo waxa allah iyo rasuulkiisa ay noo gooyaan inaanu qaadano oo war kale uusan kasoo laabanin intaa dabadeed sheekh ibraahim maxaa barnaamijka intaa noogu kamilaysaa بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة وحاوي إلهي سبحانه وتعالى وحبا ذنبه عدي يعني شريعة هذا لقى حضلي سيدة يضبا مركا لقى حضلي يقفك وحي أيد إنه يكفي لناتو إلهي با أمركا كسيه يقاضو سيدة إلهي با كوجي حي مر تا إلهي با كان لي حي كالليحو oo mar haddii allo warkan kasoo fulay la yidhaahdo maxay ahayd in sidiisa loo qaato laakiin mushkilada bini aadanka haysata iyo nasiib darrada haysata ayaa mararka qaarkood ilaahay baa sidaa ku dhahay iyadoo laleeyahay ama sidaa rabbi baa kaa doonaya iyadoo laleeyahay ayaa waxaad arkaysaa micnihii maaragtay intaasoo micnaha maaragtay shay oo kale u keenaya horta in shareecadan la iltizaamo oo la laazimo ayada la qaato diinta ilaahay subxaana watacaala sharciga uu nolosha ugu talagalay in la qaato waxay macnaha bini aadanku siinaysaa inuu la midoobo oo uu la mid noqdo maamulka guud ee ilaahay subxaana watacaala uu ku hagayo koonkan oo dhan jamaadaadkiisa xayawaanaadkiisa noolihiisa kulli buu macnaha maaragtay uu ku hagayo ayuu ka mid noqonaya taasay macnaha maaragtay dhaxal siinaysaa haddii uu kan leexdo shareecada ilaahay subxaana watacaala waxay dhaxal siinaysaa inuu ka fallaagoobo oo uu ka baxo khadkii guud oo ilaahay subxaana watacaala maamulkiisa uu ku hagayay macnaha uu ka baxaya nasiib darro ka badanna ma jirto ficlan in ilaahay subxaana watacaala nidaamkiisa qofka uu ka baxo nasiib darro ka badan ma jirto ficlan saas wey laakiin waxaa isweydiin laha horta shareeco in la sameeyo sharci in la sameeyo muxuu u baahan yahay
sharci in la sameeyo axmedo wuxuu u baahan yahay aqoon buu u baahan yahay, cilmi buu rabaa, cilmi ayuu rabaa. ciddaas ay sharciga u sameynaysaan aqoon u leh, waxa maslaxadiisa ah garanaysa, waxa u daran garanaysa, cid noocaas ah ayuu u baahan yahay, aqoontaasuu rabaa. xataa kuwa isku daya qawaaniinta inay macnihii maaragtay bini aadanka u sameeyaan oo ayagoo hawadooda ku hogaamiyaan, xataa qolooyinkaas waxay sheegtaan mararka qaarkood markay rabaan inay ammaanaan dasaatiirtooda, waxay sheegaan in ay kasoo minguuriyeen intaasoo wadan qawaaniintood inay kasoo minguuriyeen. wuxuu raadinayaa qofkaas, wuxuu raadinayaa wax sare inuu sameeyo oo aqoon ku dhisan iyo macnihii maaragtay caqli ku dhisan. laakiin aqoonta bini aadanku sidiisaba sidaa la tilmaamay waa maxduud, aad bay u xadidanta. koonkaasuusan waxba ka aqoonin, waxa ku nool buusan waxba ka aqoonin, qeybkuusan waxba ka ogeyn, asagaan macnihii maaragtay qeyb kamid a xayaatadiisa uusan waxba ka garanaynin, sida loo maamulo wax uu ka yaqaan lama arko. qofkaan waxaa rabaa markuu shareecada sameynayo inuu yaqaan ilaahay subxaana watacaala, yani waxaa weeye aqoontaas isagay u idishahay, aqoontaas rabbi isagay u idishahay, oo ilaahay subxaana watacaala isagoo noo tilmaamaya cilmigiisa inta uu gaarsiisan yahay ayaa wuxuuna leeyahay subxaana allah, yani walow ana maa fi lardi min shajaratin aqlaamun walbaxru yamuduhu min bacdihi sabcatu abxur maa nafidat kalimaat ullah. yani aqoonta alle iyo cilmiga alle haddii inta geed caalamka ku yaala, ma ah geedaha macnihii maaragtay magaalo mucayana ku yaala, inta geed caalamka ku taal haddii kulli qalmaan laga dhigo wax lagu qoro, baddana 7 jeer inta la buuxiyo kulligeed khad laga dhigo wax lagu qoro, maa nafidat kalimaat ullah. ilaahay cilmigiisu ma go-ayo. aqoontaas iyada ah shareecadii kasoo maaxatay in bini aadanku uu macnihii maaragtay ka warwareego oo hawo bashar oo meelay gaarayso aan la garanayn iyo macnihii maaragtay laxdada ku xigta waxa uu mudan doona aan la garanayn laga doorto, ficlan waa nasiib darro wey, nasiib darro wey, wax kaloo lagu tilmaamay lama yaqaan. aad buu bini aadanka noocaa u fikiraya, aad buu u nasiib daran yahay. taa marka laga gudbo, khalqigan aad wax u sameynaysid macrifo inaa u leedaha la rabaa. aqoonta uu uleeyahay bini aadanku, bini aadankan kale ee wax u sameynaya intay la egtahay. ilahi subxana watacala wuxuu leeyahy alaa yaclamu man khalaq wa huwa latiifu lkhabiir. war alla miyaanan aqoonin khalqigii uu abuuray miyuusan garanaynin ilaa cid kale u dabamarto? waa waxyaab le wey. ilaahay ma yaqaan miya macnihi maa khalqigan uu abuuray wixii ku haboon ma yaqaan. weliba macnaha gabagabada aayadda waxaad arkaysaa latiifun khabiir. ilaahay subxaana watacaala waa cid turid badan wey, isaga cid ooga naxariis badan bini aadankan ciddii sheegaysa inay jirto haddii taa iyadaa u baahan macnaha maaragtay inay dib isu muraajacayso. cidda macnihii wax ilaahay uga roombaan, waxa ilaahay ugu talagalay wax ooga naxariis badan baa u sameynaya qof kale, qofkaas warkiisu inuu ku noqdo u baahan yahay. anaa ilaahay ooga khabiirsan qof kale, ya oo wax macnihii maaragtay ku jira dadkan anaa garanaya, waxay u baahan yihiin anaa garanaya cidda lena inay macnaha caddaysatay ku roon, yuusan macnaha maaragtay inuusan meelaha ku laalaabanin. xaqiiqadaas marka macnihii xaqiiqa laga wareegi kara maaha. xaqiiqa qofkii raba inuu dul istaago aada ugu muuqanaysa wey. ilaahi subxaana watacaala khalqigiisana cid oga aqoon badan ma jirto, cid oga naxariis badanna lama arko, cid oga turid badanna lama arko, cid oga naxariis badanna lama arko. waxaa lagu diida marka ma garanayo aniga macnihii maaragtay bini aadamku inay u hoggaansamaan. weliba qofkii muujisanaya ooba inkirsan ama ilaahay wujuudkiisa inkirsan ama ilaahay macnihii maaragtay inuu u hoggaansamo diidan waaba la gartayba. ayaan darada haysato qolada islaamka sheeganaysa, ya oo haddana macnihii maaragtay ilaahay macnihii maaragtay inay shareecadiisii garab maraan raba. maxay ku talagelayaan? maxayse ku dooranayaan? waxa ay ku dooranayaan anigu ma garanaya ficlan, waa nasiib daro. waxaa intaa marka laga gudbo ficlan u baahan in la ag istaago bini aadanku tabartiisu inuu ogaado, ya tabartiisu inuu ogaado aad bay muhiim u tahay. raxima allahu imra'an carafa qadra nafsihi. qofka hadduu ogaado tabartiisu wuu garanayaa macnaha maaragtay meeshii uu taagan yahay. markaa macnaha waxaa aada kuugu muuqanaysa bini aadanku ilaahay subxaana watacaala naxariista uu hayo, ludfiga uu hayo, sida wax badan oo uusan tabartiisa ahayn uga rafciyey, sida macnihii shareeca inuu sameeyo kale waaba laga rafciyey, ilaahay baa ka dulqaaday. maxaa yeele tabartiisa inay ahayn baa ilahi subxana watacaala ogyahay.
maxaa yeelay ilaahay wuxuu og yahay inayan tabartiisa ahayn ilaahay baa ka kaafiyey wax ilaahay ka kaafiyey maxaa u sahashay macnaha ilaahay wuxuu leeyahay faqiirnimada bini aadamka soo tilmaamaya tabardarrida bini aadamka soo tilmaamaya yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah war idinkaa ilaahay u baahan marka sidaa macnihii shareecada ilaahay dadka loogu tirtirsiinayo ama ilaahay subxaana watacaala uu ka hadlayo ama cibaadadiisa uu ka mid dhigay waxaa weeye bini aadanka turid uu u hayo ee lutfi ilaahay subxana watacaala uu haya kasoo maaxatay laakiin bini aadankii asaan tabartiisa garanayn wax kale oo ilaahay uu ka rabana ma jirto naxariis uu bini aadanka u hayo intaa marka laga gudbo waxaa su-aal muhiima oo aada in isu weydiiyo oo dadku inay isweydiiyaan mudan waxaa weeye horta shareecadu sideedaba sharciga ilaahay subxaana watacaala in la qaato iyo inaanan la qaadanin optional miya wax macnaha miya macnaha maaragtay oo ikhtiyaari miya oo qofka hadduu rabana qaadanayo hadduu rabana ka tegayo sidaana uu ku nabadgelayo qofkii sidaa qaba haddii macnaha maaragtay isagaa la weydiinayaa macnihii meesha uu ka keenay isagaa la weydiinaya laakiin ilaahay subxaana watacaala arrintan ikhtiyaari kama dhigin weliba hadduu qofka iimaan sheeganayo oo mu'min ilaahay baan rumaysana kii diiday waa diiday isagu kaaba xaaladiisu waa xaalad kale wey laakiin kan sheeganaya inuu ilaahay subxaana watacaala rumaysan yahay oo ilaahay subxaana watacaala baan u hogaansanahay oo ilaahay baan macnihii maaragtay caabudayaa leh oo misna haddana raba inuu maaragtay shareecada ilaahay ka wareego maxaa ilaahay ka yiri aan isweydiino macnaa اختيار ما أرنت اختيار ما وأرن واجبة إن لقاته أي واجب تهيو إلهي سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم والعدوى إلهي بال سبحانه وتعالى قف مؤمنة وما هبونا قبر مؤمنة وما هبونا ما هبونين haddii rabbi subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisu ay arrin go-aamiyaan markaa wixii ka dambe inay ikhtiyaari leeyihin oo iyaga siday rabaan ka yeelayaan saa rabti inaad u tasarufaysid saa rabti inaad u dhaqmaysid arrintaasi arrin ilaahay agtiisa ka shaqaynaysa maaha arrintaas arrin ilaahay agtiisa ka shaqaynaysa maaha haddaadan iimaan sheeganaynin waa baab kale laakiin haddaad iimaan sheegato oo allaan rumaysnahay aad tiraahdo rabbi go-aanadiisi iyo shareecadiisina ay meeshan yaallaan haddii aada baal marto taa ilahay agtiisa kama shaqaynayso ficlan macnihii waxaan dhihi lahaa marka dadku waxa ay macnaha ku dhaqmayaan iyo waxa ay dooranayaan iyo waxa ay raadinayaan iyo waxa ay sheeganayaan inay iswaafajiyaan ayagay maslaxa u tahay ha ka fiirsadeen wallahu mustacaan waxaa laga soo hadlay shareecada ilaahay subxaanahu watacaala basharkan ugu talagalay inay tahay shareeca kowni ah sida loo hadda noola sheegina shareecadaas waa waajib marka macnahaas waxa weeye alla subxaanahu watacaala isagaa wuxuu leeyahay khasaa'is gaar ah cid la sheegan karta aan jir maxaa yeelay ilaahay isagaa khaaliqa kulli shay isaga ah maalik kulli shay isaga ah wa mudabbir kulli shay isaga ah caliiman bikulli shay isaga ah maadaama ilaahay tadbiirka iyo maamulka iyo abuurista iyo mulkiga iyo cilmiga cid la sheegan karta sida hadda lasoo sharxay isaga keliya leeyahay de alla subxaanahu watacaala sharciga iyo maaragtay qaanuunka iyo nidaamka nolosha basharka danta ugu jira maslaxada ugu jirtana cidaan ilaahay keliya iska male alla keliya iskale laa shaarica ila allah subxaanahu watacaala macnahaas waxaa noo soo baxaya in sharciga ilaahay la qaato oo sidaa loo fuliyo wa hada huwa aliimaan wa hada huwa alislaam wa hada huwa alhanuunki waa kaa wey haddii laga leexdo waxa weeye waa gaalnimo waa baatil waa macnaha shirk waa jaahiliya lidalika marka dadku waxaan rabnaa inay caddaato qadiyaddu shareecada ilaahay ma aha wax sida hadda la sheegay gorgorta geli karto waa xaq ilaahay uu la khaasiyeeyey sida koonkaanba isaga uu u abuuray taasaan ku dari lahaa mahadsantahay sheekh xasan macnaha ilaahay baa koonkaan abuuray bini aadanka asiga abuurahoodii ah waxa maslaxadooda iyo dantooda ku jirtana asigaa yaqaano kitaab buu usoo dejiyey rusulna waa usoo diray
wadadii noloshaan aan u mari lahayn iyo sidaan u noolaan lahayn Allah subxaana watacaala wuu noo cadeeyey wada kaleeto iyo dariiq kaleeto Allah subxaana watacaala naga ogol yahay inaan xayaatadan u raacno ama manhaj annaga aan degsan ha ahaato ama dasaatiir qolo kale ay keenta ha ahaato wax la iska yeelaya ma sharciga ilaahay iyo nidaamka koonkan ugu talagalay in la waafaqo oo juz'i ka tirsan inaan nahay aan ogaano isla markaana waxaan si fiican ognahay qof walba markii uu dhalanayo koonkan imaanayo fidradiisa waa islaam waa muslim way waxa bedelayaa waxa weeye jawiga uu ku soo biiray xaaladda ka jirto hadduu majuusiyo u imaadahay way saameynaysaa hooyadii aabihii buu raacayaa haddii uu nasaaro u imaado sidoo kaleeto haddii fidradii asalkeeda ilaahay u abuuro oo waafaqana uu ku cisoobayaa adduun iyo aakhiro daawadayaal intaas baan kusoo gabagabeynaynaa xalaqadeeni caawa oo insha allah intii aan xalaqadan ma xalaqo kale aan ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين